waa kuwan afarta tale ee ka caawin doona si aad iib fara badan u samayso xataa haddii aad ganacsigaaga ka quusan rabto oo albaabada u xidhi doonto adiguna aad ku baran doonto afartan talaabo ee halkan kuugu wado shayga koobaad ee aynu bedeli doono si iibkeenu u sare u kaco waxa weeyaan waa tayada shayga aad iibinayso ayaynu bedeli doonaa ganacsatada fara badan waxay diiradda saareen inay faa'iido sameeyaan si degdeg ah macaamiil markuu u soo galana waxay ku dhahdaan kabahani waa kaba tayo leh shaygan waa shay tayo leh kabacdina maxaa ku dhaca macmiilkaasi uu iibsada markuu xaafadda la tagana wuxuu arkaa tayada xaqiiqda ee shaygaasi uu wato kabacdina uu ka niyad jabaa maalinta xigta macmiilkaasi ma soo laabto kabacdina muxuu sameeyaa ganacsaduhu alaab cusub ayuu soo iibiyaa kabacdina muxuu sameeyaa macaamiil cusub ayaa timaada wareegta noocaas ay ku jiraan iyagoo iska indhatiraya tayada oo diiradda saaraya oo kaliya inay faa'iido sameeyaan maalmo ka mid ah waxaan tagay meherad kabaha kubadda ayaan rabay inaan iibsado balse nasiib wanaag ka hor intaan meherada tagin waxaan soo arkay meherado kale oo kabahaas iibinaya qiimihii ayaan mataqaana soo ogaaday kabacdina meheradii ayaan tagay nasiib wanaag kabacdina waxaan weydiiyay inay kabaha hayaan waxay u dhaadeen waanu haynaa kabihii ayaan weydiiyay qiimahooda waxay ii sheegeen waxay ahayd in qiimaha kabahaas ay ku taagan yihiin $5 balse markuu qofku igu yiri $5 baanu ka siinanaa kabahan anigu waan nahay markaan laba ciyaarood ku ciyaarina kabihii way faaxeen tayadooda hoos ay u dhacdeen anigana kalsoon darro ayaa igu dhacday in la ikhyaamay ayaan dareemay tani waxa weeyaan ganacsade ila dhaqmo inuu kaliya rabo inuu faa'iido iga sameeyo hadafku ganacsiga aad u dhistay ma ahan inaad faa'iido samayso ee wax weyn in macaamiil si joogto ah kugu imaadaan waxna ka iibsadaan si aad faa'iido joogto ah u samayso waatan qaabkan u bedelino tayadana ama shaygaad iibinayso tayadiisu ha hooseyso balse macmiilka la wadaag in tayada shaygaad iibinayso ay hooseyso daacad noqo ama se shay tayadiisu sarreeyay iibi balse macmiilkeed ka iibinaysa ku weydiin maayo qiimaha ee wuxuu ku weydiin doonaa tayada shaygu uu leeyahay balse daacad ayaad u tahay inaad qof wax ka iibiso ood ka caawiso wuxuu rabay ama in aad khiyaanto waa niyadda qofku uu wax ku iibinayo waxaana laga yaabaa adoon ka warqabay inaad iibiso shayga adoo beenu sheegaya qaabka loo helo macmiilku waxa uu rabo iyo tayada macmiilku waxa uu rabo hadday tahay mid hooseysa ama hadday tahay mid sarreysa waxaan ku siin doonaa video ku haboon ee commentiga waxaad ku soo qortaa macmiil si aan adiga si khaas ah kugu soo diro video kugu sharaxaya qaabka macaamiisha loo soo helo iyo shayga aad iibinayso macmiilka ku haboon shayga labaad ee sare u qaadi doona iibkaaga adigana ka caawin doona si iibkaaga uu sare u kaco waxa weeyaan qiimuhu waa maxay qiimaha aad diiradda saari doontaa talo waa maxay ka hor intaadan qiimaha diiradda saarina waxaanu diiradda saari doonaa shayga la yiraahdo macmiilku haddaba muxuu yahay macmiilku waa shayga ugu qaalisan ee ganacsigaagu uu ku dhisan yahay si aad lacag ku soo gasho haddaba diiradda saari mayno shayga in iibinayno qiimaha uu ku fadhiyo waxaanu diiradda saari doonaa macmiilka wax laga iibinayo macmiilka aynu wax ka iibinayno muxuu xiiseeyaa labo muxuu dareemayaa waqti xaadirkan uu ku sugan yahay saddex halkee uu degan yahay macmiilkani iyo saaxiib leeyahay macmiilkani waxyaalaha aragtidiisu ay yihiin maxay yihiin iyo wax lamid ah maalmihiisa macmiil ayaa soo wacay wuxuuna ganacsigiisu u ahaa sanfilayo waxa ay u guuriyaan dadka goobta ay raba inay guuriyaan waxay ku fududeynayaan transportationkii waxay ku fududeynayaan alaabta guriga aad ka guuriyay iyo meeshaad guurisay intaba kabacdina waxay weydiiyay in aan tala siiyo consult kabacdina waxaan ku waayay sidee baad u gaadhaan kabacdina wuxuu ku yiri kow social media labo in aan maxaa contactkiga aan ku dhajino sariflayaasha kabacdina waxaan weydiiyay mataqaana meesha macaamiisha aad rabto inaad u adeegto halka u badan ee waqtigooda u badan ay ku bixiyaan markaasuu waatan waxaanu sheegay si uu qiimihiisa sare ugu qaado faa'iido far badan ganacsigiisa uu sameeyo goobta macaamiisha laga heli karo waxweyn waa sariimada ay wax ka adeegtaan gabdha ayuu adeegaya badan aniga gabdhaha nin guuri oo leh guuraya oo mataqaana joodi isku geelin inuu guuro aad ayuu yartay badan waxa guuro waa dumarkana halka laga hela waa sariimada sidaas ayaanad ganacsigaaga haddii aad ogaato macmiilku goobta uu joogo magaciisa xiriirkiisa aad si fiican weysidii xogtiisa waxay ka caawinaysaa in aad faa'iido fara badan samayso halkii aad qiimaha iyo lacagta diiradda saar lahayd macmiilka diiradda saar shayga saddexaad ee sare u qaadi doona iibkaaga ganacsigaaga si maalinla waxa weeyaan waa xidhiidhadu maxay yihiin ganacsigayga ii xisaabay macaamiisha u fara badan ee wax naga iibsada si joogta waliba noola soo xidhiidha waa macaamiisha aan shakhsiyadeeda garanay waa macaamiisha nagaga xidhan social media hay hantiyeelo sababtuna maxay tahay hore ayaan ula dhisanay xidhiidh taasoo noo fududeysay in aan wax ka iibin karno si joogta
youtube-kii social media waxaan kusoo jiray 2019 ilaa hadda oo aan wax kusoo gudbiya waxaan iga caawisay in ganacsiga iyo xisaabi si fudud aan wax u iibin karno anagoo xiriir fiican oo tayo leh aan dhisnay mar hore haddaba waa tan qaabkaad adiguna xiriir fiican aad u dhisi karto halkii aad ka fikir lahayd iib yar iyo lacag yar aynu guda galno waxaa jira istiraatiijiyad ka caawin doonta saad xiriirka macaamiisha aad u dhisan karto waxaan la idhahdaa 7-11 السلام عليكم maanta meherada maxaa la shaqeeyay Allah buugayga xisaabta xageen u doontaa xogtii sanadka hore dhan qorayay halkan ayaan ka maamulaa meheradayda iyo xisaabi fudeediyaha hantidaada mid ganacsi iyo mid shakhsiyaaneedba shaacinta iyo xisaabi waxa ka dhiman waqti yar oo kooban haddii aad rabto inaad ka mid ahaato dadka tirada yar leh ee marka ugu horeysa aan fasaxno iyo xisaabi inay isticmaalaan linkiga hoosta yaalla whatsappkaasi nagala soo xiriir si booskaaga aad u xaqiijisatid maxay kaliya nambaradan aan ku sheegay 7 waa 7 jeer oo macmiilkaagu ku arkay ama uu ku maqlay waxay ka caawinaysaa inuu xiriir uu kula sameeyo adiga oo aanan hore wax uga iibin waxay noqon karaysaa in uu meel ka arkay boora social media ka arkay ama uu ka maqlay asxaabaada u adeegtay iyo wax la mid ah 11 jeer oo aad falgal wada sameeysan waxay noqon kartaa social media comment uu kugu soo qoray waxay noqon kartaa maruu ka iibsaday waxay noqon kartaa meel uun inaad macnaha interaction idinkaga dhacay adiga iyo macmiilkaaga waxay ka caawinaysaa soo kale xiriir inaad dhisataan tirada ugu dambaysa waa maxay waa afar goobood oo kala duwan oo aad macmiilkaaga wadaagtaan ama aad ku kulanteen tusaale ahaan goob sportiga masaajidka library-ga iyo goobo kale qasabna maaha in goobahan aad hal goob ku wada nooshiin waa inuu arkaa oo kaliya macmiilkaagu goobta aad adigu tagto iyo goobta isagu tago inay isku mid yihiin ka bacdina si dabiici ama si dadban waxay maskaxdu u samaysanaysaa in ay maskaxdu tirado aha goobtaas ayuu tagay ana goobta ayaan tagay waan isleenahay okay markaas waxay ku fududeynaysaa marka inaad xiriir la dhisto macmiilkaaga adigoo wax ka iibin tan waxay ka caawinaysaa markuu yimaado meheradaada isagoo oo maskaxdiisa ay ku jirto si dadban goobo isku mid ah inuu wax ka iibsado maadaama uu ku aaminayo shayga afraad ee u dambeeya ee ka caawin doona si iibkaaga maalinle uu sare uga qaadi doono waa maxay waa bismillah waa cadayntu waa maxay isaguna iibkaaga maalinle uu sare uga qaadi doona ganacsiga waa inuu leeyahay cadayn ah in macmiilkaagu uu heli karo cadayn cad oo ka caawinaysa in wax ka iibsado waa cadaynta in ganacsigaagu uu arki karo in shakhsiyadiisa hore wax looga iibiyay ama isaga hore looga iibiyay qof sidiisa oo kale ama shakaalkiisa oo kale ama baahiyiisa oo kale inaad hore wax uga iibsado waxay u fududeynaysaa macmiilka inuu ku aamino oo uu helo cadayn oo adiga wax kaga iibsado maxay samaysaa shirkadda Nike waxay raadisaa qof aad adigu garanayso oo aad taageerto ka bacdina kabahay u dhiibta ka bacdina maxay ku soo qortaa just do it adiguna ugu dambeystii waxaad tiraahdaa aha maadaama uu Cristiano Ronaldo u xidhay Nike aniguna waan rabaa maadaama waxay ku tuseen cadayn ah inaad adigu heshay qof aad ku kalsoon tahay in uu hore wax uga iibsaday adiguna aad si dadban aad wax uga iibsan doonto cadayntu waa buundada isu keen xidha adiga iyo macmiilka haddii aadan weli ka daysan cadayntii aad macmiilkaaga uga iibin lahayd oo oran lahayd waatan cadaynteedii macmiil sidaadoo kale hore wax uga iibiyay maanta bilow cadayntaada inaad dhisato macmiilka ugu horreeya meherdaada soo gala ka codso in uu ku siiyo falcelin kuna abaalmarin annaguna waxaan kuga abaalmarinaa 2 hadiidood haddii aad ka mid tahay macaamiisha isticmaasha iyo xisaabi whatsapp hoosta yaala nagala soo xidhiid haddii aad la dhibaatoonayso macmiilkii ku habboona waxaanad iibinayso inaad hesho ood isku lifaaqi kar laaday macmiilka iyo waxaanad iibinayso hoos waxaad ku soo qorta macmiil waxaan ku siin doonaa video adiga kugu habboona kuu khaasa kaasoo kaa caawin doona macmiilka saxda sida loo soo helo iyo sida la isugu lifaaqo waxaanad iibinayso iyo macmiilku halka u taagay hoosta ku soo qor macmiil